taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Jenaraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa tababar ugu soo xiray magaalada Jangiri ee dalka Turkiga. Dufcadii ugu horeysay ee hablo dhameystirtay tababarka ciidan, kuwaas oo ka mid noqonaya ciidanka booliska sida gaarka ah ee u tababaran ee Harmacad. Munaasabadan ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka kala socotay dowladaha Turkiga iyo Soomaaliya, kuwaas oo ugu horeeyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya, taliyaha ciidanka booliska Turkiga iyo ku-xigeenka arrimaha ciidamada safaaradda Soomaaliya iyo Turkiga ee duqa magaalada Jangiri iyo saraakiil ka tirsan ciidamada Harmacad. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya ayaa xusay muhiimadda ay u leedahay Soomaaliya dhismaha ciidanka booliska, isagoo sidoo kale ugu mahadceliyay dowladda Turkiga taageerada ay u fidiso dhismaha ciidanka Soomaaliya. waxaan ku faraxsanahay macallimiintiina inay aad iyo aad idin amaanaysay oo muxuu ahaa tababarkan inay ka wiilashaba idukaad kaga fiicneed tababarkan dalka haddaad ku noqotaanna wax badan aad u qaban doontaan dalkiina. tababarkanina wuxuu ka mid yahay tababarada khaaska ah ee howlgallada khaaska loo isticmaalo. dufcadda gabdhahani waa dufcaddii ugu dambeysay oo tababarkaas uu ku soo xirmay. marka waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo mar labaad dowladda, shacabka iyo ciidanka booliiska, gaar ahaan ciidanka gaarka ah tababarkan ay u fidiyeen qolada xamar joogta oo ciidankeenaasa iyo gabdhahaanba. Soomaalidu waxay leedahay abaal wayna gudi doonaan insha Allah. gabdhaha tababarku u dhamaaday waxaan idinku hambaliyeynayaa tababarkii aad soo qaadateen ee quruxda badnaa oo maanta 28-ka bisha 8aad idin xirmay. way idinku hambaliyeynayaa natiijada fiican aad ka soo hoyseen. qiimaha ugu fadhiyo tababarkan Soomaaliya waxaad ka garanaysaan maalintii aad soo baxayseen aeroboortkan ku soo dardaarno idinku yimi. maantana Turkiga waxaan u imi inaan tababarkan idin xiro. waxaan filayaa maalinta dalka xeradan leeydi keenayay iyo maanta inaad aad u kala duwan xagga aqoonta iyo fikirka iyo ciidanimada iyo hubka iyo duruusta aad qaateen wax weyn inuu u dhaxeeyo. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadnaqayaa macallimiintii iyo dugsigan ka shaqeynaysay ee waxbaraysay gabdhahan iyagu gacanta ku hayay. Burada tekrar söylemek istediğim bir teşekkür etmek gereken bir arkadaşlarımız var. Buradaki emeğini geçen ve bu külliyenin yöneten kardeşlerimiz ve bu kardeşlerimizin eğitim veren emeğini geçen herkese tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Abdulqaadir Maxamed Cusmaan, Ariel TV, magaalada Muqdisho.